السلام الله عليكم أصحابتي ذا Soomaali Maxmed ee wajidii wiilka walaalka la safar maantay waa qayladaan waa waray iyo waliba xaaladda Soomaalida ku dhaqan Malaysia oo meel xun maraysa immigration ku dhigeen cawada 3 saacadood la haystay أنا أدعك حيرنا البوركة cabashooyin iga soo gaaray saraakiisha ku nool dalka Malaysia ayaan maanta idin la wadaagi doonaa haddii aan ugu cusub tahay subscribe taada waa dhiirigelin like taada waa codsi commentigana fikirkaaga nagu wadaagaysaa ku soo dhawaada barnaamijkii faahfaahsan sidaan wada ogsoonahay safaaradda ku taal dalka Malaysia Soomaali badan ay ku dhaqan tahay waxaa laga soo gudbin jiray ama hadda ka hor aan Facebookyada muuqaalo wareegay ku aragnay iyadoo laga soo gudbinayo cabashooyin safaaradda Malaysia kaliya ma ahay safaarado kale oo badan way jiraan oo dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo loogu manna sheegto lagu cadowsado xaalad gumeysi u dhow ay ka dareemaan muuqaalka maanta adin hayo waa wiil dhalinyaro ah fiisa marka la cusboonaysiinayo warqadda meherka marka la sameysanayo qofka markuu dalkii aadayo xaalada safaaradda sida aan ku wada naqaan waa dawlad Malaysia iyo shakhsi Soomaaliya ma wada hadli karaan marka waxyaalo fara badan oo shakhsiga kan wax u fuudeyn lahaa ayuu safaaradiisii ka soo qaataa oo saxiix dawladeed baa wada hadla haddaba meeshii bal shacabka ku soo hiranayeen ee safaaradii Soomaaliyeed ee saxiix Soomaalida oo anfici lahaa bal xaaladooda hal mar ayna la wadaag السلام عليكم عفوا دلك ماليشيا Soomaali Maxmed ee wajidii wiilka walaalka la safar Soomaaliya wax sidaan u galay ma fahamteen wuxuu tagay safaaradda Soomaaliya wuxuu ka soo goostay warqadan drive document Allah maxay uu ka qaatay lacag 600 والله بالله تالله نك رجع هاي وحو ilmayo intuu bulsho soo hor istaago wax sahlan ma Soomaaliya ninkan ilinta indhihiisa soo dhaafaysa waa ilinu celinayo oo isciil cunaya oo qamuumyoonaya bal ilaahay baa ku dhaarshay wiilkaas fayskiisa bas ila fiiriya ila qiimeeya xaaladdu ku sugan yahay ringaday ka qaateen ma fahamteen ilaa hadirtay la barta joogna fake waayo qof ku baxay numberkiisa macnaha ku siiyay asagana migrationka markuu tagane waxa ku dhaa waa la qabsado waa lagu dhaganaa abada lagu dhaganaa safiirka la waca safiirku hada wax iga gal mala shaqo ku leeyahay mala wax aan bixinayo mala ma fahamteen safaaradda Soomaaliya oo ku leedahay Malaysia qaa'imiin waayo oo tuuga waa ma fahamteen safiirkana waa qaa'in kale taa inta la tusiyo warqada oo wax dhan loo sheego oo lala hadlay oo diiday inuu lacagta qarashka dhan oo bixiyo tikidkiisa gubada ayaa noqotay maxaa ku dhaa lacag oo haysta malahan wajidii waxaan safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Malaysia waxa ka jirta xaalad dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku dareemayaan xanuun adduunka ilaahay qofka qurban nacaska dadka Soomaaliyeed ku ijaafeeyo oo ku gumeystaa wax ka xun ma jirto sababtoo tahay Ethiopia Kenya Uganda Malaysia waa meelaha qurban nacasa dadka westernka ee dhulkan reer galbeedka jooga ee shaqooyinka iyo fursadaha iyo cayrta iyo qaadanaya meel loo raaco weelaas qurban nacas ereyga qurban nacas dad far badan baa ila fahmaya war qofkan family laga yaabo hooyo inay yaanyo saaka iyo baradho ay goobeeynayso oo gadaysay wiilka kan meeshtan ku jooga baa dhici karto inuu agoon iyo rajo yahay baa dhici karta dad baa sugaya oo eeganaya oo mustaqbal u yahay waxbarasho meeshtan u yimid ama dana caafimaad meeshtan u yimid wixii yarkaa ee loo soo diray intii laga qaaday oo warqado feega hatta lacagta si waxa looga dhacayaa macnaha mukhallasiintii ajnabiga ah Soomaaliyeed si u dhici jireen lacagtii baa laga qaaday warqado feega loo dhiibay warqadii feega oo immigration kala tagay asagii waa lagu dhagay balanka hadii la xir la xabsi u gal la ka war wallahi ni si ka war haysan familkiisu baa ka daba wareeg laha warqad khaldan inaad immigration la tagtaa waxyaalaha xabsi loo galay ko ka ta ninkii markii la wacay safiirkan wuxuu yiri waxaan ma garanayay waa sida ay dhalinyarada sheegayaan waa sababtaan ugu baahanahay dadka Malaysia ku nool war arrinkaas maxaa ka jira aan ku socono bana ku dhahay oo wixii uu ku bixi lahaa wixii dhan wada fake waaye because warqadana u sababay warqada drive documentiga fake waaye $150 oo ku qaatay Soomaaliya marka okay safiirada jooga la dhaha Malaysia oo maxaa la dhahaa oo Soomaalidu wax u qabanaa wuxuu u qabanaa ii sheega wuxuu u qabanaa wiilka waa hadli la ayahay bal u fiirsado gabadha hadlaysa wallahi gabadhaas dhiig baa ku jira dhiig Soomaali nimo baa gabadhaas ku jira
wiilkii waa hadal ka soo bixi lahay dhuunta kala xiran xaaladan oo kale markaa ku jirto waa dareemaysaa hadalba kaama soo baxayaba dhuuntaasa laba kala ah $150 waxaan u maleynaysaan lacag yar laga yaaba markaad cayr qaadanayso shaqaysanayso wadan fursad leh aad joogto inay $150 agtaada wax yar ka tahay laakiin markaan wadankii waagaan ku nooleen oo waalidiintiin aan ku hoos nooleen $150 qiimaha ay lahayd waa dareemaysaa sida $150 lagu soo helay baan la ogaan karin laga yaabay kaama dambaysa inay tahay oo $150 waxa weeye de kaama dambaysa ahaan loogu soo diray wixii meel kuma sheego waa dhacaya war maxaa khaldan war soo ma ogidin dadkan waa dhakhaatiir waa dad wax baranaya waa injineeradii biri wadanka dib intay ugu laabtaan anfici lahaa xiqdi iyo xaasidnimo marka dada kan lagu beero oo sidatan loo dhibaateeyo wadanka markay ku laabtaan bi ayagana shacabka ka jarayaan sababtoo ah waqaadka wax ku soo barteen bay ogyihiin in qofka mas'uul hadduu noqdo ama uu xarun furto inuusan ummadda Soomaaliyeed wax saxaana u gelin bay ogaanayaan waa qaa'in anagoo la hadlano telefoonka lagu damiyay sidoo toona la hadlay markaas wuxuu ugu jawaabay aniga wax ii kala malaha wax lacag ah bixinayeen malaha sidaas uu ugu jawaabay ma fahamteen dawladda Soomaaliya waa u jeedin shacabka Soomaaliya waa u jeedin safiirka Malaysia jooga qaa'in waaye wiilka Soomaaliyeed saan u galay meel oo aad malaha lacag oo haysta malaha lacagtiisii qarashkiisii dhanne tikidkii wuxuu ku baxsaday iyo warqada oo qaranaha iyo xaqdaad iyo warqadan uu ku sameystay lacagtiisa dhan way ka dhamaatay marka uu dan sheegana uu dhahay saas ay ugu dhacdo markuu dhahane wuu ka diiday meesha hadda aan fadhinana ee laboorka waa wuxuu ku baxmaystay wiilka Islaameed marka qof mas'uul meeshan hadduu daawanayo dhalinyaro dad mas'uuliyiin garanaya haday daawanayaan waxa idin ka codsanayaa war maanta hadaysan xaaladda tani aysan adiga ku haysan oo walaalka haysan oo in adeerka ay haysan waxay haysataa wiil Soomaaliyeed xanuunkan maanta hadaa dareemi weydid oo wallahi biribay walaalka abtiga adeerka habaryarta eedadaaba Malaysia danka soo gali kartaa oo sidatan loola dhaqmi doona kow waxa qalada in looga dawladeed safaaradii Soomaaliya in ay loogadii Soomaaliya u isticmaasho qaab qaldan oo fig ah war mukhallasin ba meesha joogtay ya rasuulallah ya xabiibullah xagee iska qabsan la adabaasho ana waalan misaadan baa laga yeesiyaa xafiiskii dhamaa ee dawladda Soomaaliya safaaradii Malaysia uga furnaad hadii uu loogadii Soomaaliya qaab fig u isticmaalay ka waran xagee isku raacay qodobka labaad baa wuxuu yahay aan rabo inaan dul istaago dumarkii Soomaaliyeed maxay ku sugan yihiin taro ragiba hadii sidan loo ciilay oo ilinta ay sidatan u soo dhaafayso talo dumarka Soomaaliyeed xaalad noocay ku sugan yihiin dumarka Soomaaliyeed aan ogsoonahay xitaa danahooda in ma taqaanaa iyo duruufahooda lagaga faa'iideysto oo gabadha xataa si kala qaab kale loo isticmaali karayo oo wax kale lagu guriyeen karo talo gabdhaha Soomaaliyeed maxay ku sugan yihiin meeqa ciil aamusan talo meeqa qamuyoonayso oo social media aan soo fariisan karin oo sidatan loo galay dawladda Soomaaliya waxa ka codsanaynaa safiirka in wax laga qabto waa kana warqad feegah waa safaaraddu wallahi migration ku dhigeen cawada 3 saacadood la haystay أنا أضحك حيرنا البوركة فات يا ريت هذا ما يتجوزها فعلي ده حالك وفصل كي وحتى إنه كوي ماذا خوف سفارات كسرعة إنه كوي ماذا أوكي نكيم كان هذا لسفيرك يوجد أنا أحمي يقلن Soomaaliya been abuur qofka bilaadnaka uma ilmeen karo meel uma soo fadhiisan karo habeen 3 saac oo habeenimana uma tii karo meel ay la booro been abuur warqado dawladeed shaashad looma soo saari karo been abuur intuu wiilkii hadalkii soo saari waayay gabadha inuu dhiigeedu heerkaas dhaqaaqo oo isa u gubato wax been abuur ama waxaan codsanayaa safaaradda Soomaaliya ee Malaysia ku leedahay inay arinta tani meel saarto aniga labadan qof ama wiilkan saan loo galay oo muuqdo dad fara badan oo waxa jira victim ah oo aamusan baa jira oo meel ay maanta ka hadlaan aan garanay waan dareensanahay waqti xaalkan aan hadlayo millions people oo xaalado noocaas ku jira oo safaaradaha Soomaaliya ee dunida ku yaal lagu dhibaateeyay inaan u hadlayo waan dareensanahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa qofka muuqaalkan ii soo gudbiyay arrinkan igala hadlay iguna adkeeyay maadaama codkayga meel dheer u gaari karo inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago dhalinyarada Malaysia ku nool iyo waliba safaaradda Malaysia ku nool waxa looga baahan yahay arinta tan inay meel saaraan halba waa cudur daaraya dhalinyarada YouTuberada ah ee Malaysia ku nool waa cudur daaraya sababtoo ah arrinkan kama soo hadli karaan maxaa yeelay haddii arrinkan ka soo hadlaan safaaradii baad dan ka soo galaysaa wala dhibaateynaya oo wallahi dhalinyarada kale
bulshada Soomaaliyeed saameynta ku dhaxlay mas'uuliyiinta bulshada Soomaaliyeed saameynta ku dhaxlay dadka hal doorka ah ee hadalkoodu meel dheer gaaraya waxaan codsanayaa war meeshaas qurbaha ah ee Malaysia la yiraahdo safaaradeeda dayac baa ka jira fara badan iyo in haddeer muwaadiniintii Soomaaliyeed baxar la geliyo waxaan idin ka codsanayaa in arrinkan qof walba arrinkan u dhuunduleela wax ka og uu xogteeda raadiyo ummadda Soomaaliyeedna meeshaas laga furfuro oo ku xirxiran yihiin safaaradda Soomaaliya ee Malaysia ku taal waa ku xirxiran yihiin ummadda Soomaaliyeed gacmaha ka xiratay barnaamijkaana waxaan jeclaan lahaa bal in indhaha halka lagu wada hayo wixii aragti ah qofka dadku wax nagu dhaamay reer Malaysia inay commentiga nagu wadaagaan haddii aanu cusub tahay subscribe taadu waa dhiirigelin like taadu waa codsi commentigana fikirkaaga nagu wadaagaysaa barnaamijkii maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa inta aan ku kulmi doono barnaamij kale mid ah oo wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliya Sheekh Sharmi leh ciao ciao